Haweenweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee ka soo jeeda gobolka Sool ayaa hambalyo ballaaran u diray Marwo Waris Abshir Diiriye oo ka mid ah 7 xubnood ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland u magacaabay Komishanka Xuquuqul Insaanka Qaranka. mudane madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay shir hawshaas aad gabadhaas u magacawday Waris Abshir Xaaji Diiriye oo ka soo jeeda gobolka Sool degmada Taleex waxaan qirayaa maalintii aanu Taleex iyo Laascaanood kaaga ololeynay ee aynu kulanay ballan qaadiyadii aad ballan qaaday inaad dhabaysay waxaan mar labaad kaaga mahad celinayaa wax kasta oo aad ballan qaadid oo afkaaga ka soo baxana inaad sida ay tahay u dhabaysid marka sida darteed mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay warisna waxaan leeyahay warisay shaqadu kuma cusba agaasimaad soo noqotay in badan baad soo shaqaysay waxa tahay gabadh xilkeeda gudan karta kuwa kalena waanu kaaga fadhinaa mudane madaxweyne waxaan halkan ka salaamayaa anoo magacaygu Qaali Xuseen Raage waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilka uu magacaabay Waris Abshir Xaaji Diiriye waxaan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay xilka aad u magacawday waxaad u magacawday qof ku haboon haddaanu nahay gabdhaha darwiish qof aqoon leh qof waay aragnimo leh qof muddo dheer soo shaqaynayay waad ku mahadsan tahay xilka aad u magacawday qof ka soo bixi doonta xilkeeda weeye aad baanu kuugu mahad celinaynaa haddaanu nahay gabdhaha darwiish inta haddaan kaga baxo salaantii madaxweynaha waxaan Waris leeyahay xilka inaad Ilaahay ku fududeeyo matid maanta qof cusub oo shaqadu maanta ku cusub tahay qof waligeed soo shaqayn jirtay baa tahay Allah ku fududeeyaan ku leenahay ugu dambeyntii waxa madaxweynaha qaranka Soomaaliland u mahad celisay Marwo Waris Abshir Diiriye sidoo kalena u mahad celisay haweenka ugu hambalyeeyay jagada cusub ee madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay Marwo Waris Abshir Diiriye waxaana kamid ahaa hadaladeedii bismillahir rahmanir rahim ilaahay baa mahad leh ilaahay inoo awoodaas karsiiyay ayna karsiiyay inaynu isugu nimaadno waxaan mahad aad iyo aad u naqayaa mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne aad baad ugu mahadsan tahay xilka aad magacawday waxaan kale u mahadnayaa haweenweynahayga reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee xusay ee soo hambalyeeyay ee ugu soo taageeray ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi ayaa ka dhabeeyay ballanqaadyadii uu la galay reer Taleex ama bulshada ku dhaqan gobolka Sool waxaanay tani ibafur u noqonaysaa in Soomaaliland ay ka jirto dawlad dimuqraadi ah oo ay dadku u wada siman yihiin min bari ilaa galbeed waa Mustafa Axmed Samakaab wararka STN TV Hargeysa.